qiimaha badan ee ugu toosan ee isugu dheelitiran ayaan abuurnay wax oo ka wanaagsan aniga ka abuuris wanaagsan makhluuqaadka ilaahay insaanka wax ka abuuris wanaagsan ma jiro alla wuxuu leeyahay wanaaga iyagoo sida loo abuuray haddana ilaahay marka dambe wuxuu u celin ila ardalil umri buu celinayaa waxaad arkaysaa qofku hadduu cimriyo oo cimrigiisu uu waxoogaa uu gaadho isaga oo hoos u laabtay jidhkiisii isu dheelitiraa jidhkiisii isku toosnaayoo iswada daba maray baad arkaysaa waxaad arkaysaa marka dambe isagoo maskaxdiisii ay isbedeshay oo aan gaajada u adkaysan karin oo aan oonka u adkaysan karin oo waxba aan u adkaysan karin ayaad arkaysaa marka dambe waa ardalil umr baa loo celinayaa alla wuxuu subhanahu wa ta'ala illa kuwa iimaanka ilaahay uu siiyay amal wanaagsanna sameeyay mooyaane muhammadan rasuulullah shanta waqtiba marka la adimayo alla markii la xuso nabi muhammadna waa la xusay alayhi salatu wasalaam culayska miciisa ayuu ahaaday yusran fudayd فإذا فرغت مركات كدح بعض صلاة وصلاة آتكته أما مركات كدح بعضه رسالة قدرشة إذا مركات كدح بعضه فانصب كدال في الدعاء دعاء كدال ومركات رسالة قدرشة إذا كدح بعضه haddana cibaadadii kaliya alla barigii dhexka loo ku daal fansab macnaheedu waxa weeye waa ku daal oo samee wey wa ilaa rabbiga intii ka ana farghab jari oo quudaree oo raxmadiisa iyo naxariistiisa damac alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala nabi muhammadow miyaanan laabtaada waasicinin oo naan u waasicinin nabinimada يا هنوك يا إيمانك إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفر سنة إساقو جنو إلهي لابتيسا جيحي لابتيسا انتي لا جيحي أيا وحال لغا ساري حذيقي شيطانك أيا لغا ساري لابت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفر سنة إساقو جراء مركاسا وحال لغا بوحيي علمي إيا حكمت بان لغا بوحيي ألا مركا وحولي هاي laabtaada miyaanaan waasicinin oo miyaanaan u waasicinin nabinimada iyo hanuunka iyo iimaanka markaan ka buuxinay xigmad iyo cilmi markaan ka buuxinay kadib waxaan xaggaaga ka dejinay buu alla leeyahay wiiraka aniga wisigaasi muxuu yahay ilaa nabi muhammad khayru khalqillaahi buu ahaa macsuum buu ahaa dambigiisii horiya kii dambaba waa la dhaaf إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وحوي النبي عليه الصلاة والسلام أفرتن نبي مركي أفرتن سنة أبو حسمين أيان رسالة الله ساري والنبي عليه الصلاة والسلام أفرتن كوحي كهريي نبي وعبادي وحبا مؤونا جران هينين ودي رسول بالله قمدقين نبي مركي دنبه أفرتن كاسانو uusan soo cibaadaysanin yaa waxoogaa culays nabiga ku qaban jirtay aniga markuu xusuusta 40 sano inuusan soo cibaadaysanin oo wax cibaada uusan soo samaynin inkastoo nabiga ilaahay uu ka ilaaliyay wax alla wixii jaahiliga calaaqa laha oo ilaahay uu ka ilaaliyay nabi muhammad warigiisana muuna u sujuudin nabi muhammad alayhi salatu wasalaam warigi khamra ma uuna cabin ولي وحر ما ونصمين إلى هيبة إلى رين هيي وكدوريي مركا ووضعنا عنك وزرك معنى هذا وحوي عبادة أنتي النبي أفرتن كاسر أنت أفرتن كوحي كهريي عبادة أنتي عبادة سنين أنت عن رسولك الله قدقين أي النبي وحو أركيي إنه جانس نافي تاسو مركا إلى هاي وحولي هاي وحان حقاك كد الجني دنبي جاجي حقاك كد الجني يعني قصقا وحو أركيي أفرتن كاسنا وسن عبادة سنين أيوه وحقها دنبي يعرس سووا أركيي الله وحده سبحانه وتعالى وحان كرو قادني مغعاغا أيان كرو قادني
إلهي بان شرفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهينا وحو كشرفي الله ماشي لغو شيغا إساقنا لغو شيغا ربي بهادي الله شيغو نبي محمد ولا شيغ شرفتيك وين شرفتاس عنك شرفك وين ما جرت الله وحو ليهي عريسك وحا معيسى فضيد دا معيسى نبي عليه الصلاة والسلام حديث حسن البصري لغا وريي ايا نبي وحو يري بشاريستا لن يغلب عسر بيسرين بنور عليه الصلاة والسلام ددك ايمانك له waxaad ku bishaaraysataan anigi hal culays laba yusri kama qarib noqon hayo illa ilaahay wuxuu yiri fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra marka laba fudayd baa la sheegay laba fudayd ayaa la sheegay usriguna waa hal weey oo isaga macrifahan baa lagu soo celiyay hal buu noqonaya laakiin yusrigu laba ayuu noqonaya marka nabigu wuxuu calayhi salaatu wa salaam miyana ku waasicinin wa wada'na waxaan ka dajinay canka adiga xaggaaga widraka culayskii aad dareemaysay oo aad u arkaysay sanadihii aad soo cibaadaysan inay culays yihiin waan ka dajinay walaalahay subhanahu wa ta'ala alladhi culayskaasoo anqada culaysiyay dhahraka dhabarkaaga culaysiyay wa rafa'na laka waxaan ku kor yeelay oon kor kuugu qaadnay dikraka adiga xuskaaga iyo sheegitaankaaga oo meeshii ilaahay lagu sheegaba adigana waa lagu sheegayaa fa inna ma'al usri culayska miciisa ayuu ku sugnaaday yusran fudayd inna ma'al usri culayska miciisa ayuu ku sugnaaday yusran fudayd fa idaa faragta risaalada gudashadeeda markaad ka dhex baxdo فانصب كم مشغول أو كدال في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى دعاء إلهي أو بريضه يا إلهي أو التضرع ذو تا كدال بؤل الله سبحانه وتعالى وإله ربك أنت كأنا فرغب جري إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديس والبا جري إلهي والبا التضرع مر إلهي سبحانه وتعالى خير كيسا ضمع سنة وضمع حكاية جرو سورة الضحى وسورة سقاشا يسدحها ترتيبك قرآنك آيات هذنا وكوية طبعا آيات سورة الضحى ومكي وقرآنك مكة كسو دقي سورة الضحى أبدأ وحانكم بالله بهذه السورة سورة وحانكم بالله يا بسم الله إلهي مجي عيسى أيانكم بالله الله الرحمن نحريس عاما نحريسا هي أدونك أنت لجوغو الله الرحيم نحريس خاص نحريسا آخر مركي لتغو والضحى برقك أيانكم دارتيه والليل هبينك أيان كردارتي إذا سجى كونك مركو الضباله وبظلمه وكو الضباله ما ودعك كامتجن ربك كامتجن وما قلا منكو عرون ربك ولا الآخرة ذات آخرة يا خير بدن لك أذيك كو خير بدن من الأولى مد هورنا كاغا خير بدن والدنيا ده ولسوف يعطيك وكسين دونا ربك فترضى مركز رالي نقون دونتا الله سبحانه وتعالى وحو كسين هيا خير إيا كرامات بو إلهي كسين هيا سبحانه وتعالى مركز رالي نقون هيسا بو الله سبحانه وتعالى الله وحو كو دارتي برقنك أيو كو دارتي حلقة برقنك قرحضو أي كورسو كعضو أيو إلهي كو دارتي habeenku hadana ilaahay ku dhaartay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu koonkan ugu dhaaranayo waxa weeye baraarujinu inagu baraarujinayo
inaynu fahamno ilaahay cadamadiisa subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay koonkan sidan u socda ee mar uu habeen iman hayo mar maalin ay iman hayso iskama socdo awood ilaahay buu ku socdaa subxaanahu wa tacaala ilaahay awoodiisa ayuu ku socdaa suuradana sababu nuzuul bay lahayd sababu nuzuulku wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtiyada kamida ayuu jibriil waxoogaa ka daahay malakul jibriil ayaa waxoogaa ka daahay wuxuuna uga daahay guriga nabiga ayaa waxaa galay bahal yaro ay ah ayaa galay malaa'igtuna saddex shay meel ay joogaan ma soo galaan ay meel uu joogo malag ma iman hayo sawir meel uu yaalana malag ma iman hayo bahalkan lagu magacaabo jaraska ee la garaaco kaasi meel uu yaalana malag ma iman hayo marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu waayay malakul jibriil waxoogaa wuu ka daahay anigii intuu iman hayay intuu ka maqnaan hayay in ka badan buu ka maqnaaday ilaa nabigu uu hiloobo oo uu hiloobo la kulanka malakul jibriil calayhi salaam nabigu marka banaanka intuu soo baxay ya banaanka markuu soo baxay buu malagu u yimid malakul jibriil calayhi salaam markaasa nabigu wuxuu yiri maxaa kugu dhacay waad iga daahday markaasa wuxuu yiri malakul jibriil nabiga ilaahayow guriga bahalkaasa ku jira ay baa ku jira meel uu ay ku jirana manimaadna ayuu yiri malakul jibriil ayaanta marka nabiga uu malakul jibriil ka maqnaa yaa mushrikiintii waxay isdhex mariyeen ninkii muxamed ahaa jinnigiisii uu ka tegey wuu u cadhooday shaydaankii awalba waalayay waa ka tegey oo wuu u cadhooday wax noocaasay ku sheekeeyeen tiibuu marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ka hadlay oo wuxuu yidhi alle waxaan ku dhaartay barqinka waxaan ku dhaartay habeenkaan ku dhaartay ee rabbigaa kaama tegin ma kaa tegin kumana goynin kumana cadhoonin ilaahay subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi midda dambe oo aakharada yaa kuu khayr badan adduunyadana iyada kaaga khayr badan maxaa yeelay adduunyada khayrka yaalla iska yarba aakhara markii la fiiriyo adduunyo waxba noqon mayso waxba ma noqonayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku siin doonaa oo aakhara uu kugu siin doonaa khayraad fara badan ayuu ilaahay kugu siin doonaa markaasaad qanci oo aad raalli noqon aakhara markii la tago ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dee wuxuu nabi muxamed u diyaariyey ilaahay uu ku abaalmariyo markaasaad nabiyow qanci buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala nabiga ayaa qalbiga loo dejinhayaa oo la samirsiinhayaa wadduxaa baan ku dhaartay barqinka wallayli habeenka ayaan ku dhaartay idaa sajaa koonka markuu daboolo bidulmihina uu ku daboolo ee maa waddacaka ma uuna kaa tegin rabbuka rabbigaa ma uuna kaa tegin wamaa qalaa mana uuna kuu cadhoonin rabbigaa waxaan ay gaaladu sheegayaan mushrikiintu ay sheegayaan ay leeyihiin muxamed waa laga tegay oo waa loo cadhooday waxba kama jiro walaalaakhiratu midda dambe yaa khayrun laka adiga kuu khayr badan nebi muxamedow min aluulaa midda horeyna kaaga khayr badan tahay aakharaa kaaga khayr badan adduunka walasawfa yucdiika wuxuu ku siin doonaa rabbuka adiga rabbigaa wuxuu ku siin doonaa aakharana uu kugu siin doonaa min alkhayraat khayraad buu ilaahay kugu siin doonaa fatardaa markaasaad raalli noqon ood qanci alam yajidka miyuusan alle ku helin nebi muxamedow yatiiman adiga oo agoon ah oo fa'aawaa miyuuna ku dumin meel lagaa jecel yahay miyuuna ku geynin nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo caloosha hooyadii ku jira oo hooyadii weliba uurkeedu uuna sii weynayn 6 bilood meelaha uu yahay ayuu aabihii dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina isaga oon weynayn oo dhowr sano jira anigii aan 10 sano gaadhin ayay hooyadiina dhimatay
laakiin ilaahay muxuu siiyey adeerkii Abu Talib yaa dumay gosha geliyay kuwa uu dhalayna isaga ka jeclaa ma ahayn wax iska caadi ma ahayna wuxuu ahaa awood Allah ayay ahayd ilaahay baa nabiga agoon markuu ilaahay nabiga ka dhigay ayuu ilaahay wuxuu siiyey meel laga jecel yahay oo laga xanaanayn oo laga dhaqaaleynayo ayuu ilaahay siiyey subhanahu wa ta'ala alam yajidka miyuna rabbiga ku helin nabi muhammadow yatiiman xaal aatahay agoon oo faawa miyuusan ilaahay ku dumin oo meel laga jecel yahay ilaahay miyuna ku siinin adeerka Abu Talib ilaahay miyuna kugu weyrixinin wawajadaka alla wuu ku helay nabi muhammadow daalan xaal aatahay baadi fahada markaasuu ku hanuuniyey adiga oo baadi ah oo wax diin la yiraahdo aan garanaynin wax dacwo la yiraahdo aan garanaynin ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku helay markaasuu rasuul ka dhigay nabi rasuul ah mursal buu ilaahay ka dhigay subhanahu wa ta'ala kitaab quraanu ilaahay kugu soo dejiyay waa nicma ilaahay nicmooyinkiisa kamida fa amal yatiima agoonka fala taqhar ha qasbin xoolihiisa iyo hantidiisa iyo wixiisa ha u banbixin agoonka faraha iskaga qaad arintu waxa ay ku dhacayso soo inaka ma illa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam maxsuum buu hadalku cidda u socday waa inaka waxa la rabaa agoonka in la ilaaliyo xoolihiisa iyo hantidiisa wixiisa qofkuba ilaahay uu ku ibtileeyo agoon oo agoon mas'uul ka noqdaayay dib badan baa haysta waxa marka la rabaa inuu is ilaaliyo oo uu iska ilaaliyo agoonka iyo xaaladiis taas la rabaa fa amal yatiima agoonka fala taqhar qasbin wa amma sa'ila midka sa'ilka ee dadka wax weydiisana fala tanhar hagulgulin miskiin haddaad aragto haddaad wax siin karto si haddaad siin karin hadal wanaagsan dhe haddaad marka waxba jeebkaada ku haynin oo waxaad u taagta aad garanaynin hadal wanaagsan dhe hagulgulin dadka qaar waxaad arkaysaa iyagoo oon waxba siinaynin bay haddana la dagaalayaan waliba dadka masaajidda jooga qaar kamida oo waxaad arkaysaa miskiinku markuu intuu istaago uu yiraahdo gacanta uu taagto fadhiiso ayay leeyihiin way canaanayaan waxba fadhiisaha dhihina haddaad wax siin kartaan qaar baa markaa dhahdo war sidan ha yeelina ayaa waxay dhahayaan war waa masaajide ma masaajid baa laga tuugsadaa muxuu masaajid tuugsiga wala soo doontay nabi muhammad alayhi salatu wasalaam abu bakar dadku ilaahay doortay iyagoo masaajidka dhex fadhiyaan laga dhex tuugsaday markaasayna fadhiisa dhihin adu marka fadhiisa maxaad u dhih aslan miskiin waxaad u heli kartaa si waxaad u heli karin hadal wanaagsan dheh ilaahay baa qaadir ala kulli shay ilaahay wuxuu awoodaa isaga iyo inuu iskiin daba mariyo ilaahay awoodaa subhanahu wa ta'ala marka waxani waa wax qada iyo qadar rabbi ku socdee miskiinka ha gulgulin bu alla leeyahay wa amma sa'ila midka sa'ilka ee tuugsan fala tanhar ha gulgulin wa amma bi ni'mati rabbika rabbiga ni'madiisana fahaddith ka sheekee ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmada uu kugu nicmeeyay oo nabinimada dadka u sheeg waxaan dhahdaa waxaan ahay rasuul uu ilaahay soo diray quraan baa la igu soo dejiyay quraanka rumeeya ilaahay rumeeya aniga rumeeya mas'alada u fiirso wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ilaahay nabiga wuxuu ka dhigay rasuul buu ka dhigay wuxuu marka alla leeyahay risaaladan lagu saaray iyo rasuulnimadan lagu siiyay dadka u sheeg inaad rasuul tahay dadka u sheeg alla inuu ku soo diray dadka u sheeg barada u fiirso والضحى بان كدارتي برقنكا والليل هبينكان كدارتي إذا سجى كونك مركا او دبوله ما ودعك كامتغي النبي محمد ربك ربك كامتغين وما قلامنا كو عرونين ولا الآخرة مدى الدنباء آخراء يا خير بدن لك أذيك كو خير بدن
من الأولى الدنيا ذنا كاغا خير بدن ولسوف يعطيك قذال بو كاسين دونا ربك ربك خير بدن أو كاسين دونا فترضى مركاسات رالي النقط أود قنعي ألم يجدك ربك ميونك هل النبي محمد يتيما حال أضاقون تهي وفآوى إلهي ميوسا كدومين ضد كجعل من إلهي كدومين أبو طالب ميوسا إلهي كسين وقفل بكا جعل ووجدك ألا ووكو هلي ضالا حال أضبادي تهي فهدا مركاسوكو هنونيي أذيقو أن رسول هين بو إلهي رسول كادغي نبي بو إلهي كادغي رسول بو إلهي كادغي ونعمه ووجدك ألا ووكو هلي عائلا حال أتهي مدو عيدو وحبا هيسنين فأغنى مركاسو إلهي غني كادغي قلبي غاغا أيو إلهي غني نمجليي ووجدك ألا ووكو هلي عائلا حال أتهي عير فأغنى مركاسو إلهي غني كادغي غني نماذا سبحي تهي محورة بدن بالسيي مايا غني نماذا وغني نماذا قلبي أول نبي عليه الصلاة والسلام وحو حديث كو يري غني النمذو معها حول بدن أو لا أروريه وح بدن أو لا جمعيه الدنيا بدن أو لا يسوكينو غني النمذو معها غني النمذو ونفط أو إلهي وغني كدغا وأذو إلهي وقناع كسيو حدو إلهي وح كير كسيو وح كو قناع سنو حدو إلهي وح بدن كسيو إلهي وغمهد علي فقره وامتحان غني النمذنا وامتحان لبض وامتحان ذلك قاربا waxay moodayaan haduu qofka ilaahay qani uu ka dhigo inuu dadka ka jecel yahay oo ilaahay jacayl uu jeclaaday adduunyadan badan uu siiyay waa khada arintaas waa imtixaanuun hadii adduunyo badan lagu dhiibo waa lagu imtixaanaya waxa la fiirinayaa bal inaad ilaahay ku shukriyo in kala lagu fiirinayaa oo xoolaha sidii loogu talagalay aad u maamuli haduu ilaahay faqiir ka dhigana kuma nicin nicid uu ku nacay ilaahay faqiir muuna kaaga dhigin ee iyaduna waa imtixaan adaa lagu imtixaanaya oo wuxuu ilaahay fiirinaya bal inaad shukriyo in kale ayuu ilaahay fiirin subhanahu wa ta'ala barada u fiirs marka wajadaka ailan fa aghna macnaheedu nucawiyaan fa amal yatima agoonka fala taqharha qasbin wixiisa ka qaadanin wixiisa ka duudsiin wa amma sa'ila midka tuuqsanna فلا تنهر قول وأما بنعمة ربك النعمة دي سنة في حديث كشاكي والله أعلم.